farxad weyn bay noo tahay maanta inaan marag ka noqono oo aan goobjoog ka noqono saxeexa xeer nidaamyaha lagu jaangoynayo laguna nidaaminayo ajuurooyinka la xiriira adeegyada ay maxkamaduhu u qabtaan bulshada Soomaaliyeed runtii maanta waxa qabsoontay hawl weyn oo qiimo weyn u leh guud ahaan cadaaladda iyo garsoorka arinta maanta halkan lagu saxeexay oo runtii soo martay hanaan dheer oo wada tashi oo ay talo dheer ka yeesheen wasaaradda cadaaladda wasaaradda maaliyadda garsoorka iyo ururka qareennada iyadoo dib loo eegayo shuruucdii jahaynaysay ama jaangoynaysay ajuurooyinka maxkamadaha oo runtii kala duwanaa qaarkoodna lacag aad u tiro badan oo culays badan leh oo aanay dadku bixin karin jaangoynaya ama waajibinaya iyadoo laga duulayo baahidaas isla markaana la rabo in la hagaajiyo la fududeeyo la sahlo laga shaqeeyo daahfurnaanta iyo hufnaanta garsoorka ayaa waxa la isla gartay in la jaangooyo lana sahlo lana fududeeyo ajuurooyinka laga qaadayo dadka maxkamadaha u soo adeeg doonanaya iyadoo runtii la taxay oo la qoray dhammaan adeegyada maxkamaduhu ay bixin karaan ay siin karaan dadka mid walbana intii ugu macquulsanayd ee la yareyn karayay la yareeyay si dadka loogu sahlo adeegaas inay helaan intaas oo kaliya tamaha waxa hadana la sameeyay dadka aan awoodi karin inay bixiyaan intaas laftigeeda hanaan loo raacayo oo looga dhaafayo si ay u helaan adeeg cadaaladeed oo lacag la'aan marka runtii waxaan isku leenahay xeer nidaamyahani wuxuu wax weyn ka tarayaa adeega cadaaladeed ee bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay garsoorka u fidiyo wuxuu xoojinayaa hufnaanta iyo isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta garsoorka wuxuu fududeynayaa shaqada uu garsoorku bulshada Soomaaliyeed u qabto wuxuu xoojinayaa ku shaqaynta iyo hirgelinta shuruucda la xiriira hanaanka maaliyadeed ee dalka waxaanu sidoo kale xoojinayaa in dakhliga soo xarooda oo ku dhaco qasnada dawladda halka uu gacmo kale mari lahaa dhowr arrimood baan markaa rabnaa inaan soo jeedino kow horta in loo hogaansamo si buuxda loo dhaqan geliyo laga wada shaqeeyo hirgelinta xeer nidaamyaha maanta oo halkan wasiirku ku saxeexay in la ogaado bulshada Soomaaliyeed ay ogaato adeeg kasta oo maxkamadaha u doonanayaan meesha kaliya ay lacag ku bixin karaan inay tahay wasaaradda maaliyadda iyo qasnada loogu talagalay inaanu jirin maxkamad ama hay'ad garsoor oo lacag qaban karta marka laga reebo damaanadaha dadka laga dhigo oo hadii lala wareego marka iyadana qasnada dawladda lagu shubayo iyo amaarooyinka ay maxkamaduhu dadka u qabtaan oo dadku ay iska leeyihiin marka cid kasta oo adeeg ka rabta maxkamadaha oo lacag la weydiiyo ka baxsanta loogu talagalay halkan ku qoran oo qasnada dawladda ku dhacaysa waxaan ka codsanaynaa inuu ku dhiirigelinaynaa inay la soo xiriiraan xafiisyada ay khusayso isla markaana aanay lacagtaasi bixin waxaan leenahay qof kasta oo adeeg ka raba waa inuu lacagta ku shubo qasnada dawladda isla markaana waa inuu la yimaado rasiidka uu siiyay bangiga oo lacagta ku shubay iyo rasiidkii wasaaradda maaliyadda oo wada socda labadaasi hadii laga waayo ama midoodu ka dhiman yahay qofkaasi ha ogaado galkaas looma furi doono marka waxaan rabnaa gacmaha garsoorku inay noqdaan gacmo hufan oo nadiif ah waayo gacmo nadiif ah ayaa wax nadiifin kara marka garsoorkana waxaan kula dardaarmaynaa gudoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka gaar ahaan inay iska jiraan inay lacag gacantooda ku qabtaan inay kala shaqeeyaan wasaaradda maaliyaddu lacagta la qabanayo adeegyada la bixinayo inay qasnada dawladda si toos ugu dhacdo inay ogaadaan wixii taa ka baxsan in loo aqoonsanayo inuu yahay musuqmaasuq bulshada Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmaynaa inaanay taageerin musuqmaasuqa madmadowga adeega cadaaladda waxay ku heli karaan si nadiif ah oo sharci ah dariiqaha u maraan culayskii baa leedin ka fuudeeyay bulshada Soomaaliyeed idinku culays gacantiina ha ku raadsanina ha bixinina waxaan sharci ahayn ha bixinina waxaan leedin ka baahnayn kharashaadka yar ee kooban ee leedin ku waajibay ku shuba qasnada dawladda saasaan runtii ku dardaarmaya wasaaradana runtii aad iyo aad baan maartay uga mahad celinaynaa dadaalka ay gelinayso iyo mudnaanta ay garsoorka laftigiisa siinayso isagoo runtii garsoorku ah waxa aasaasiga u ah wax kasta oo bulshada saameeya haday noqoto horumar haday noqoto dakhli la kordhiyo haday noqoto maalgashi soo la dhiirigeliyo la xoojiyo haday noqoto faqriga la yareeyo haday noqoto amniga la xoojiyo
dhammaanteed waxa aasaas waa cadaalad iyo garsoor madax bannaan oo hufan marka wasiirkana runtii aad baan ugu bogaadinaynaa arrintaas ka go'an tahay faham dheerna u leeyahay muhiimadda uu garsoor ku leeyahay maantana waxaan isleeyahay waa maalin weyn oo qiimo badan oo wax badan ka tari doonta adeegyada bulshada Soomaaliyeed loo hayo iyo kordhinta dakhliga ee wasaaradda maaliyaddu oo dalka ugu igman tahay si loo daboolo baahiyaha bulshada loo qabanayo aad iyo aad baad u mahadsantahay